السلام عليكم شيخ إلهي يا كحفظيو شيخ waxaan joogaa dalka Mareykanka waxaan lacag ku diraa wax loo yaqaan wave sidoo soo qoray WAVE arfaas soo qoray waxa la yiraahdo oo sida imbeesada oo kala ah marka aniga lacag dollar ah ayaan diraa reerkuna waxay qaataan lacag Kenyan ah marka arintaas ma banaan tahay mise wax riba ku jira jazaakallahu khayran ma banaanay dib ku jira muaamalada noocaas daahirkeeda sintanada ka fahansanahay sida loo dhigay dibka ku jira wuxuu yahay waa xawaalad embeesada lacagta lagu diro iyo tan uu sheegayay u muuqato iyo xawaaladahan caadiga ee lacagaha xawila laba muaamalay kulminayaan lacagta aad u keentay iyo miday direen haday kala duwanta ee xagga laga qaadan doono laba muaamala kulmay muaamalada koobaad waa muaamalatu sarf lacagti sarif baa galay muaamalada labaadna waa muaamalatu tahwiil waa lacagta meeshan in lagaaga qaado meesha rabti lagu geeyo labaduba ahkaam bay leeyihiin sarifka ahkaamtiisa waxa kamid ah in lacagta aad dhiibtay mesela kaba soo qaad haday ahayd riyaal kaba soo qaad midda xagga laga qaadanayna waa dollar meesha lacagta sarif baa galay marka maadaama uu sarif galay sarifka lacaguhu ahkaam buu leeyahay ahkaamtiisana waxa kamida labada lacagood ee la isdhaafinaya haday isku nooc yihiin oo hal dawladi soo wada saartayna shartiga riba kaga bixi karaan waxa weeyaan waa laba sharti inay isla eg yihiin labada lacagood meesha intaan la kala dhaqaaqina lagu kala qaato hadii labada lacagood la isku sarifay laba dawladood soo kala saareenna marka hal sharti baa loo baahan yahay oo ah inta la wada taagan yahay in labada lacagood la kala qaato haa'an wa haa'an hoo isi ya idha kana yadan fabi'u fa idha ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yadin nabiy sallallahu alayhi wasallam hadii jinsigu iskhilaafo sida doontaan isugu iibiya ha kala badnaadeen ha kala yaraadeen kayfa shi'tum laakin idha kana yadan bi yadin laakin sharti inay hoo isi noqoto طيب lacagta markaad u geynaysay kambaniga xawilaya wuxuu ka qaaday lacag riyaal ah ama dollar buu ka qaaday dadkaagiina shilin bay qaateen aad u diraysay lacagtaasi sarifka galay dollarka iyo shilinka sarifka galay shuruudiisii ma dhameystirna sababtu waxa weeyaan waad soo dhiibtay markaad soo dhiibtay mudda u dhaxaysay iyo qaadashadeeda cidda qaadanaysa cidda dhiibtayna isku mid ma ah shuruudii shartigi ahaa ida kana yadan bi yadin ba ka maqan saas daraadeed waa aynu riba yani riba lafteedii waa riba nasii'a ku jirta riba nasii'a ba ku jirta wali asaf xawaaladaha qaar kamidana way isticmaalaan qaabkaas laakiin waa riba iska cad waa see looga bixi karaa waxa looga bixi karaa markaad kambaniga lacagta u keento kaba soo qaad midalan nooc kale la rabto xaq inuu ka qaato ruuxii aad u diraysay kambanigu adoo la taagan waa inuu lacagta sarifku inuu yani wax weeyaan uu lacagtii la isku bedela meehe sarifku wax weey waa inuu qiimaheedii xagga laga qaadanayo uu ku sheego oo uu geliyo buugga geliyo computerka shirkadda la geliyo intaadan dhaqaaqin waxa la yiraahdaa oo loo yaqaan alqayd fi waxa la yiraahdaa fi dafatir bimathabati alqabd oo kale ka dhiganta intaadan tagin waa in lacagta meeshaad u dirayso ruuxu ka qaadanayo shilin kaba soo qaad lacagtaad adigu dhiibaysana dollarka soo qaad dollarka iyo shilanku intay isku yihiin marka waa inay shirkaddu ku sheegto dollarkii maanta meeshaad wax u dirayso wuxuu ka joogaa inta lacagta uu dadkaagu qaadanayaana waa intaasoo shilin baan ku diraynaa waxaad nagu leedahayna waa shilin ee dollar nagu malihid sarif baa galay shilin bay lacagtaadii isu bedeshay shilinkii waa inta dadkaagu intaasay qaadanayaan haddaad dib noo timaado xataa lacagtii bixi weydo nagu soo noqoto waxa aad ku yeelanaysa waa shilin ee dollar maaha dollarkii sarifkiisii waa dhamaaday waa la kala qortay waa lagu kala baxay
shilin baa lagu diray shilinkana waa lagu sheegay intaydaan kala dhaqaaqin baa amaliyada sarfigu dhamaanaysa la kala qoran oo khalaas markaasay diritaanku bilaabanaya sida hadaan la yeelin mana yeelan dadka inta badan muaamalaadka noocaas sameeyo ka fursanayso marka in muaamaladu ay noqoto muaamala ribawiya oo shartigi at-taqabud fi al-majlis aha ba ka maqan wallahu